الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ولا ليال بارك الله فيكم سودوادا waxaad kusoo dhawaataan gacmo furan iyo mar kale iyo barnaamijkeeni ku saabsanaa tacliim salaa barashada salaada mawduucii afraad ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala intaynaan ka hadal barnaamijka walaalayaal waxaan idin xasuusinayaa in hadday tahay markii koowaad aad soo booqato channelkan ama aad aragto videogan please fadlan waxaad ku caawisaa subscribe iyo like iyo share badan si aad u hesho ajar badan rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam addaalu cala alkhayri ka faacili qofka wanaagga dadka tusiya waa sidii qof sameeyey khayrka oo kale markaa ka qayb qaado inaad nagu taageerto subscribe si aanu ugu dhiirano ama aan usii wadno ficilkan wanaagsan iyo khayrkan aan faafinayno mawduuceeni barashada salaada waxaan ka hadlaynaa walaalayaal macnaha salaada waxay leedahay luqadda carabiga macno badan laakiin macnaha ugu muhiimsan ugu caansan waxa weeye adducaa salaada macnaheedu waa allabari marka luqadda carabiga laga hadlayo waa allabari sidaa ogeed salaada qayb ka mida ayaa luqadda carabiga loo yaqaanaa macnahay xambaarsantay salaadu qayb ka mida weeye ducadu ile salaadu way macno balaarantay laakiin ducadu waa qayb muhiima oo salaada ka mida luqadda carabiga waxaa kaloo loo yaqaana salaada tacdiim weyneynta loo yaqaanaa sidaa ogeed acmaasha la sameynayo iyo ficilada la sameynayo salaada waa mid lagu weyneynayo ilaahay subxaana watacaala iyo wixii rasuulku ina amray iyo wixii islaamku ina amray waa wax lagu weyneynayo marka macnaha guud laakiin shareecadu u taqaano salaada ama qeexitaanka salaada waxa weeye waa cibaadatullah wa tacdiimuh waa in ilaahay la caabudo subxaana watacaala ilaahay la weyneeyo biaqwaalin wa afcaalin makhsuusa iyadoo ilaahay lagu weyneynayo qowlal ama hadallo iyo ficilo gaara oo salaada u gaar ah oo ay salaada lagu furfurayo bitakbiir waxaa lagu furfurayaa allahu akbar mukhtatimatun bitasliim waxaa lagu soo gebagabeeyaa salaada assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah ayaa lagu soo gebagabeeyaa salaad waxa weeye waa nidaam wa tartiib khaas jaa bihi diin lislaami waa nidaam iyo tartiib kala dambeyn u gaara salaada weeye oo islaamku amray oo diintu la timid wasaara calaa nuurihi wa hudaah jamiicu lmuslimiin waxaana sidaa ku dhaqmay dadka muslimiinta oo dhan ayaa sidaa ku dhaqmay macnaha salaadu waa nidaam iyo hab gaara oo diinta islaamku u dejisay oo loogu talagalay in ilaahay subxaana watacaala lagu weyneeyo oo lagu caabudo marka salaadu maaha in qofku foorfoorasho kastoo la iska foorfoorsado ama in la jilo oo la matalo salaad ma noqonayso salaadku ma noqonayso salaadu waa cibaado gaara oo ilaahay subxaana watacaala uu dejiyey waajibna lagaga dhigay dadka muslimiinta markaynu leenahay salaada dhexdeeda tashahudka asalawaatu lilah markaynu leenahay ataxiyaadka akrinayno ataxiyaatu lilah wasalawaatu watayibaatu almubaarakaat markaynu taxiyaadka akrinayno macnaha asalawaatu lilah waxaa laga wadaa ducooyinka ilaahay lagu weyneynayo subxaana watacaala ilaahay baa mutaystay waxdahu laa shariika lah keligii isagaa mutaystay ilaahay cid ilaahay subxaana watacaala la wadaagaysaa ma jirto markaa salawaat aladciya almubaarakaat lilahi waxdahu laa shariika lah ilahay baa iskale markay nebiga ku salinaynayn leenahay allahuma salli calaa muxamed markaan leenahay macnaheedu waa maxay waxa weeyaan ilaahayow nebi maxamed magaciisa iyo maamuuskiisa kor u qaada adduunka waa sidaa macnaheedu oo shareecadiisana ka dhig mid joogta oo abadiya ilaa yowma alqiyaamah aakhirana ilaahow nebi maxamed waxaad ka dhigtaa mid u shafeeco qaada ummadiisa oo ajarkiisa iyo abaalmarintiisu ay soo gaadho rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo lagu fasiraa allahuma salli calaa muxamed waxaa la yidhi maadaama ilaahay subxaana watacaala aynu amray inaan rasuulka ku sallino lagana yaabo inaynaan qadarkii iyo maamuusku lahaa rasuulku iyo salligii nagu waajibiyey inaynaan wada gudan baa laga yaaba sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka codsanaynaa inuu ilaahay isagu uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku saliyo
isagaa og wuxuu mutaystay rasuulku uu xaq u leeyahay isagaa og rasuulku markay salaad macnaheedu min allah linabiyihi raxma markay ilaahay rasuulka ku salinaya macnaheedu waxa weeye waa naxariis macnaha ilaah u naxariiso nabiga weeye calayhi salaatu wasalaam markay malaa'igtu rasuulka ku salinayaana istikfaar waa dembi dhaaf inay ilaahay u weydiinayaan inaga xaggeena markay rasuulka ku salinaynana waa maxay calayhi salaatu wasalaam adducaa waa duco aynu ilaahay uga baryayno in ilaahay subxaanahu watacaala nebiga uu shafeecadiisa u rumeeyo maalinta yowmal qiyaamaha iyo weyneyn la weyneynayo rasuulka ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima markaa salaada lagu salinayo nebiga waa amar lays amray markaa salaa cala nabiy iyo salaada caadiga aynu tukanayno farqiga udhexeeya saasaad ku fahmaysaa farqiga udhexeeya saasaad ku fahmaysaa salaada lagu salinayo asalaa cala nabiy waa ducaa markaa saasay u kala duwayn hadda waxaan ka hadlaynaa xukmu salaa salaadu ma sunna ma waajiba ma faralba salaadu walaalayaal waa waajib faral ah qof kastoo muslimay waajib ku tahay baalig oo qaangaadhi caaqil oo caqli leh dakarana oo unthaa lab iyo dhadig labadaba waajib bay ku tahay qof kastoo muslima oo caqli leh oo qaangaadhay lab iyo dhadigba oo shareecadii nebi maxamed soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam rumeeyey rasuulka awood u leh inuu tukado oo aan ahayn dee dhuljiif qof sariir jiif oo sariir yaalo sakaraad aan ahayn oo awood u leh inuu tukado oo ka daahir min annajaasaati waalxadath najaasadiina daahir ka ah wayse qabana alxadath macnaheedu waxa weeye wayse qaba oo aanu xadath ku dhicin daahirna wax nijaasa aanu koolin ama janaabo aan qabin labada midna qofkaa waajib bay ku tahay salaadu faral bay ku tahay ilmaha yar aan qaan gaadhin salaada waa lagu korin karaa waana la bari karaa waa lagu tarbiyadayn karaa laakiin culimmada qaar baa aaminsan markuu 7 sano ka weyn yahay uu 10 jir gaadho in lagu dilo salaada laakiin dilitaankaasi mid saxiixa maaha markaynu eegno axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ee tilmaamaysay caaisha leedahay maa daraba rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam qad rasuulku weligii qof dhan gacan umuu qaadin gabadh iyo ilmo yar saasay leedahay caaisha marka maadaama rasuulku weligii aanu ilmo yar iyo gabadh midna aanu u gacan